horta marar badan waa ka hadlay heesa badanaa jiraan heesa hadda ugu caansan oo aktarada waaweyn qaada aa jiro sida hadda filinkan rabni banaadi joori shaaruqaana jilaayo laakiin hees waxaa ku jirto oo aad iyo aad u dembi badan oo naagta leeyahay tujimee rabbi degtahay yaarame kyaa karo inaa ilaahigayga tahayaanba kuu arkaa marka qof bini aadan ma dhihi karna anaga macnaa manoo fiicna ma dhihi karno anaga ilaahan leenahay hal ilaahan leenahay laakiin ayaga diimahooda way fara badan yihiin marka heesaas ku hees kale waxaa jirto Hrithik Roshan qaadayo isagana ugu badan Hrithik Roshan fiiri hees waxaa jirta uu dhahayo jaane dil meh kab se hai tu यारा तुझसे रब की कसम यारा पहले रब से पहले है तू इलाही बादन का और मर गया है सो उड़ाया जिरतो मुझसे दोस्ती करोगी कुजरता हेस कल waxaa jirto oo ku jirto krish oo dhaayo god bhagwan और allah कौन पहला sananta la caabudo iyo bhagwanka iyo ilaahay keebaa horeeyo معناه دتك ما أفهندي قار ما يقانين سبتايتل كان لبعته وحكوليه هاي مركي وإنجليز كياي سيدا أي تاي كوجو مسوي ترجمان دتك ويفوز فستان مركي وحن لايه هساس وكله هالسكيل عليه هسا هنديكا هذا أقون أولهن نسوي ديا أنت هذا استسارين كوري هذا وحن أركي هستان أو شاروخان تجمع رب دكتها يا رامي كيا كرو ويل يجبر الصوصار يعني تاسنا ما معقول ما نقول يسو واحد هذا أخون ولهن سبتايتل كيس رادي عربي رادي إنجليز رادي ودريمي كرتا أما بمعنى سؤال كسوي دي دتك هكوفض ذاننا وحواي هندزان وات وجدين وحواي أيقول لهم دين توذا وحواي دلا كل مرنا شاروقان مسلم واي فيري مسلم لماذا واتيه مسلم لماذا وإنا تن أذيك إلهي إنه واحد يا آخرته نبي محمد مع آخرته ما أهم معنا مسلم أفكر ما لقاها دت شيعي هاجروا دت مسلم لماذا أو معناه مركي الدماء حتى وعلي ولي الله دايم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنا أيضا أشهد أن علي ولي الله يقول آية ويقدمون ويدكنوا المسلمين وضع آوي مركا dadka inaysan fududaanina fiican muslimnimada naftirkeeda waxaa jiro dad muslim ah oo sheeganaya muslim inay yihiin laakiin muslimnimadooda ay wili macnaha ay dhameystirneen marka waxaan leeyahay intaad heesaa isu saari lahaydeen bal horta iska hubiya magarnay aktarkee u jeceshahay inta badan u hadasho adiga aniga wallahi aktar badan aan leeyahay laakiin mid ayaa jiro oo aad iyo aad macnaha aan u jeclahay ritesh deshmuga la dhahaa dadku waxay u yaqaanin gaabo damaal 1 damaal 2 damaal 3 intaba adii filmaan badan oo keenay kama dambeys had dhow filan asagoo wuxuu keenay oo aabasku u talinayo gaaban asagana sii gaaban filan cusub uu ahaa maasha allah aktarkaas horta kow jimmy shergill labo aktar kale waxaa jira asagana lahayo rajkumar aktar kale waxaa jira asagana lahayo dave adiga waa badan yihiin aktarada laakiin halka aan u jeclahay waxaa waaye ritesh deshmuk filmaanta oo inta badan aad daawadso ama kuwa codeyso ma jira mid si gaara kuu saameeyey ama dareen gooni kugu yeeshay maya filim waxaa jiro mar dhow aan sameynay runtii xataa ma la dhammaynin weli oo khiyaano ah macnaha naagtu ninkeeday khiyaanaysaa macnaha filinkaas anaga filmaadka ma fiirsano filinka waxaan fiirinaa storigiisa waa soo degsanaa waa la sameeyaa kalabar markii la maraayo runtii filinka kalabar markii la maraayo macnaha waxaan u arkay filinkaas inuu u fududeynayo naagaha la qaba nimankooda inay khiyaanayaan waana filim weyn aktar weynaa wado atrish weynaa wado laakiin
waxaa ii soo baxday in aan fududaynayno khiyaanadii marka istoobaan eri macalimu sabab filinkan sidaan ka sheekeynayo anagana macnaha dad muslimaan nahay dadka aan wax u samaynayn waa dad islaam ah shactaro iyo qiso iyo wax gooni waa samayn karnaa laakiin tan khiyaanay ku saabsan tahay wax nagu habboon maaha wax nagu habboon maahan sidii aan ku joojinay marka dadka badan waxay leeyihin jeekay afindiga maa fahmi weyse maya afindiga A to Z wax alla waxaa rabtid keenso aniga waa kuu turjumaa A to Z dadka jaamacadda ugu soo baxaan wallaahi bilaahi agteyda kama hadli karaan anigoon isfaalinayn is ammaanaynin hindigi waa lahjada badan yihiin way lahjadada badan yihiin inta lahjad oy hindidu ku hadlaan